Maanta waxaan hayaa fursadii ganacsi ee ugu weyneed ee qof Soomaaliya uu si bilaash ah ku bixiyo. Sababta fursadan aan sida bilaashka ugu bixinay waxa ay tahay inaan uga faa'iideeyo gabdhaha Soomaaliyeed. Sida ay ognahay qofkii fursadan ganacsi abuura oo gabar ah ama ninba ha ahaado wuxuu noqon karaa qofka Soomaaliya ugu taajirsan 5 sano ee soo socota. Sida la ognahay magaalada Muqdisho iyo sidoo kale magaalada Nairobi iyo magaalooyinka kale ee adduunka kirada qiimaha ay cirka isku shareeraysa. Laakiin miyaad ogtahay China iyo wadamada qaarkoodba in kirada laga tagay. Sidaan ognahay gabdhaha Soomaaliyeed waxay aad u xirtaan dharka loo yaqaan cabaayada qofka asagoo meesha uu rabo ayuu ku iibi karaa, asagoo jooga Yurub, asagoo jooga America, asagoo jooga Muqdisho, asagoo jooga Hargeysa, asagoo jooga Garowe, asagoo jooga Sacuudiga, goob kasta ayuu ku iibi karaa. laakiin miyaad ogtahay haddii qofka dukaan oo magaalada Muqdisho uu ka furo ama meelaha magaalada Muqdisho ugu muhiimsan dadku wax gata ay degan yihiin uu dukaan ku furo bisha waxa uu kiro ku bixi karaa $700 ilaa $1,000. taasina suurtagal maahan qof cabaayadaha kaliya iibiyo oo lacagtan soo xareeyo. gabdho badan oo aqaan dukaamadooda ayaa xirmay labadii bilood ee la soo dhaafay ama labadii sano ee la soo dhaafay aan dhahay. sababta uu xirmana waxay ahayd in kirada bixi waayeen. qiimaha kirada ee $1,000 ilaa $700 kor u dhaafaya waa caqabad weyn oo hortaagan ganacsiyada gabdhaha Soomaaliyeed ama ganacsiyada ay leeyihiin gabdhaha Soomaaliyeed. laakiin dhibaato waxa barbar socota in gabdhaha Soomaaliyeed aysan ogeyn sida ugu faa'iideysan karaan fursadaha casriga ah ee ganacsiga online-ka ama digital-ka ah. maanta waxaan hayaa fursad ganacsi ugu weyn taasoo ah application kaliya Abaya House. gabadhii Soomaaliyeed ama gabdhihii Soomaaliyeed oo sameeya application laga helo dhammaan cabaayadaha oo gabar kasta meesha ay joogto intay bixiso $15 ama $20 bishii ay dukaan ka dhax furo karto, alaabteedana ay soo dhigi karto, gabar kastana ay ka gadan karto. gabadhaas markii lacagta ay dhiibtana meel amaan ah ay lacagta ku sii jiri kartaa ilaa qofkaas adeeg uu soo gaaro. taas waxay ka dhigan tahay qofkii lacagta bixiyana inuu soo dhahin lacagtina waa bixiyo adeegiina lima keenin. sidoo kalena qofkii alaabta laga iibsaday inuusan ka walwalayn in lacagta qayb soo hormari la dhaho, inta kalena markii qofkii alaabta loo geeyo lagala gambiyo. tan waxay ka dhigan tahay inuu yahay ganacsiga ugu amaanada badnaa. si kale haddii aan dhaho waa Amazon, Alibaba iyo sidoo kale kuwa kale ee dunida ka jira. haddii aad Sacuudiga tagto waxaa jira dhowr application oo lagu iibiyo cabaayadaha oo dumarku si online kaga soo dalbadaan. gabdhihii barnaamijyada sameeya dhammaantood waa taajiriin maanta. waxaa rabaa fursadan gabdhaha Soomaaliyeed inay ka faa'iideystaan. haddii application aad sameynayso oo aad joogtay magaalada Muqdisho waxaa kaaga baxaysa $2,000 ilaa $2,500 application dhammaystiran oo dhammaan paymentyadu ku xiran yihiin. sidoo kalena dhammaan saaran applicationada meelaha looga baahan yahay sida App Store iyo Play Store. balka waran Abaya House haddii aad sameyn lahayd oo gabdhaha Soomaaliyeed aad uga faa'iideyn lahayd. tusaale qofku meel kasta oo joogo dukaan ayuu ka dhax furo karaa, cabaayadiisa ayuu soo dhigi karaa, qofka ka harana halkaas ayuu alaabta ka dhex gadanayaa. waa fursad dhif iyo naadir ah in dadka oo dhan ay wada helaan. 3 bilood ee la soo dhaafay waxa cilmi baaris ku sameeyay sababta kirada magaalada Muqdisho ay cirka isugu shareerayso. wax kale maahan dadka guryaha iska leh waxa ay rabaan lacag waali inay ka sameeyaan kirada. dadka ganacsiyada yaryar abuurayana lacagta ay kirada ku bixiyaan ayaa ka badan mid ay ganacsiga ku abuurayaan. taasi waa mushkilad weyn. ha walwalin, fadlan fursadan ganacsi ka faa'iideyso maanta ku soo bandhigayo. sidee ayaad ku sameyn kartaa application laga helo cabaayadaha oo kaliya ah. sidaan ognahay gabdhaha Soomaaliyeed dharka cabaayadaha si aad ay u xirtaan. haddaba si aad application u abuurtid waxaad u baahan tahay inaad shirkadaha la xiriirtid tiknoolajiyadda ee ku yaala magaalada Muqdisho, gaar ahaan kuwooda ugu fiican. waan ogahay qaarkood lacag badan ayuu ku leeyahay bay ku dhihi doonaan sida 4,000 5,000, laakiin taasi suurtagal maahan. waxaad la xiriiri kartaa oo kaliya ah adigoo aan isku halin inaad u tagtid developerada Soomaalida. waxaa jira dhalinyaro badan oo madax bannaan kuwaas oo developero aniga qaar badan oo kamid ah ayaan garanaya, waana ka caawin karaa haddii aad la soo xiriirtid. waxa kaliya oo aad sameyn kartaa wax kale ma waa developeradaas inaad u tagtid lacag yar oo $1,500 ilaa $2,000 aad kula heshiisid. markuu shaqada dhameeyana lacagtaas aad ku wareejisid. applicationkaas waxaa ku dhamaystiran dhammaan paymentyada Soomaaliya. maanta sidoo kale waxaa fursad si ah Soomaaliya waxay leedahay payment gateway oo haddii aad u baahantay xataa qof Sacuudiga jooga oo meel kale jooga oo ajnabi inuu wax ka iibsado fursad ayaa heli kartaa inuu kaaga iibsado. sababtoo ah application-ka waxa lagu xiri karaa payment gateway oo waxa lagu iibsan karaa Mastercard iyo Visa card iyo wax kasta. sidoo kale waxa lagu iibsan karaa dhammaan paymentyada Soomaalida sida EVC, e-dahab iyo dhammaan wax alaal wixii payment Soomaaliya ka jira. taasina waa fursad weyn. fadlan gabdhaha Soomaaliyeed maanta halka talo ayna siinaa waxa ay tahay joojiya kirada tirada badan oo aad bixinaysaan. 2 gabdhood ama 3 gabdhood oo ganacsiyo waaweyn ku leh magaalada Muqdisho haddii
ay wada fadhiistaan sidoo kalena barnaamijkan ay abuuraan ayna ku bilaabaan dukaamadooda waxay noqon kartaa fursad weyn oo degdeg ay ugu tahjiri karaan. sababta aan fursaddan usoo bandhigay waxa ay tahay inaa waaye dad ka faa'iideysta sababtoo ah dad badan arrintaa kuwa baraarugsanaa. qof kasta diyaar uma aha fursadda ganacsi ee bannaan inuu kula wadaago ee wuxuu rabaa inuu kaa gato. sidoo kale dadka guryaha iskale iyo kiristayaasha iyo dadka guryaha kiradooda ku nool ma rabaan weligaa inaad horumar samaysid. dukaan aad ku bixin lahayd $700 oo sidoo kale cidna aysan ku arkayn. applicationka halka faa'iido uu leeyahay waxa ay tahay qofku waxa uu arki karaa meel kasta oo dunida uu ka joogo. dukaan ku yaala magaalada Muqdisho waxa arki karaa qofkii magaalada Muqdisho jooga. laakiin markii qofka application ka dhex furan yahay adduunyada oo dhan qofka Soomaaliga oo jooga ayaa wax ka iibsan kara. waana chance weyn. dukaankaasna waxa laga yaabaa in qol aad kaga dhex kiriisatay applicationka dhexdiisa lacag ka yar $50 ilaa $20 bishii ama laga yaabo in lagu yiraahdo sanadkii oo dhan waxa laga qaadayaa lacag dhan $100. bal ka waran sanadkii oo dhan $100 hadaa kiri u bixisay cabaayadaha laga iibsho. sidoo kale tan waxay fursad weyn u tahay gabdhaha ganacsiyada guryaha ka sameeya. sidoo kale dhanka amaanada ugu badan ee inta badanba muranka iyo dhibaatadu ay ka dhacdaa wax kala maahan waa fursada ku saabsan in qofka adeegii uu dalbaday aan loo keenin. laakiin applicationkan waxa laga rabaa inuu xalliyo qofku markuu adeegii uu dalbado oo lacagta dhiibo inuu qofkaas si degdeg ah qofkii iska lahaa carwadaas uu degdeg alaabta u dhiibo sidaas uu geeyo. Soomaaliya waxa ka jira application badan oo alaabo kala duwan lagu iibiyo laakiin midka cabaayada waxa laga rabaa inuu gabdhaha gooni u noqdo. sidaan ognahay gabdho badan ayaa guryaha jooga oo banaanka aan u soo bixinba sidaas ay tahayna ma arki karaan meesha dukaanka ka furatay laakiin applicationka uu telefoonkooda ay ugu dhex jiraa halkaas ayayna ka dhex arki karaan. waxaan rabaa fursaddan inaad ka faa'iideystaan sidoo kalena intiina ka faa'iideysataa aad iimaad celisaan. magaca rabtaan u bixiya Abaya House aniga ayaa iska doortay laakiin adigu magaca jecesha oo la bax applicationka hal xabo oo kaliya maahan xataa waxa loo baahan yahay 10 xabo ka badan ayaa loo baahan karaa ama 10 application sababtoo ah ganacsigan waa mid aad u weyn. sababta gabdhaha Soomaaliyeed xirtaan cabaayadaha sababta aan sidaas u leeyahay waxa ay tahay markii ganacsiga digitalka ee applicationka cabaayadu u yimaado gabdho badan oo dhalinyaro ah oo jecel inay ganacsi bilaabaan laakiin maanta kirada xanuunkeeda ay hortaagan tahay ayaa ganacsiga si dhaqsiyo loogu soo beeli karaa. sidoo kalena waxay uga faa'iideyn karaan bulshada Soomaaliyeed in ayagu ay soo saaraan naqshado ay gaar u leeyihiin applicationkan ay ku soo bandhigaan. waxaa jira application badan oo sambaladooda halka ay ka tusi doono kuwaas oo ay kaga daya kartaan. bal haddaad fiiriso adduunyada oo dhan imise application oo cabaayadaha iyo dharka dumarka ayaa ka jira. maxay tahay sababta idinka aad u sameeyay laadeen gabdhaha Soomaaliyeed oo aad ugu dhiiran laadeen ganacsiyada 10,000 ee kirada ee bisha aad ku bixinayso waan ogahay kama soo saari kartid dhibaato badan ayaad ku qabtaa. fadlan fursaddan ha laga faa'iideysto anigana ha liisoo mahadceliyo maadaama aan wax lacag ka qaadin dhamaantii si free ah in kugu faa'iideeyay. applicationka laga dhaxili karo dhammaan cabaayadaha noocyada kala duwan. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. fadlan fursado kale oo cusub ayaan soo wadnaa ee nagu soo biir mahadsanid.